markii ay ku tiri wiilkan anaga xiriir naga dhaxaya adigu maad quusato nin haray ma lahayd sida hore baad ugu socotay waan adag baad tiisanays halkeen ku haraya waxaaba dhacday maxay ahayd jaamacad intaan ka soo maqnaan iyada intaan la joogeen sheekada aan xalinaynay in jaamacadda aniga dismiss laga saaro oo sanad dib aan ugu celiyo jaamacadda waxbarashadii oo xaafadii problem iyo dhibaato iga timaaday okay adigoo problem badan kugu furmay xaafadiini buuq aad gashay xataa heer aad gaadhin aad waxbarashadaada iloodo iyaduna waxa dhibka aad iyadoo ma restarted ma ku ogid iyadoo horta qofka marka aad jeceshahay adigu iyo qofka markuu isagu marka adigu qofka aad jeceshahay iyo qofka markuu ku jecel yahay isku mid maaha qofka aad jeceshahay aad daneyn badan siinaya oo daryeel siinaya laakiin ruuxani adigu ka war sugaya iyadoo wax dhankayga ima bahayninba wax dareen ahba aniga un baana jeclaa okay marka aad adigu aragtay inaad gabadhii ay ku soo jeedin kuna doonin ay dadka la ay rabtayadu adigu marka ma gaabsi waad samaysay sawli wadaba socotaan gabadha mid daba socod baan sameeyay marka aan wax dareemayo marka ma hadda ma wax kala garanay marka wax ma kala garanayn marka amiirkaygu maankaygu ma joogin ba qof jacayl qaatay badayd qof jacayl qaatay baan ahaa marka qof jacayl ku jira baan ahaa qof hadduu jacayl ku jirana qof hadduu jacayl hayana inuu xarka aad u yar tahay intuu xarka way yar tahay sax imka waxa baan aaminsanahay gabadha inaan anigu aan kibirka ka badiyay oo anigu aan daryeelka badan aan siiyay mahmaahadii ahayd waxa dib yahay laga badiyo oo dhintaa marka haddii aad ruuxa daryeelka jacaylka intuu haddii aad ruuxa jacaylkiisa intii siyaadad ka badiso uu ka tagaya already waa la hubataa soo shurba marka haddii aan sidan aan u garan lahaa jacayl badan iyo danin badan ma siiyeen ka intii aad garab taagnayd iyadu wax ma dareentay cilaa inta aan garab taagnaa anigu wax cilaa ina dareentay iska day xataa in ay aabaheedo kale ay aragto ayaan gaarsiiyay waxaad gaarsiisay inay ku aragtay aabaheedo in aabaheedo kale ay aragtaan gaarsiiyay okay ma la dhigi karaa gabadhaas adiga kuma jeclayna walaaltinimad ku socotiino walaalba ka dhiganaysa ruux marka jeceshahay waa inaad noqotaa walaal aabo hooyo wax kasta uu kaaga baahan yahay ruux waa inaad noqotaa iyo saaxiibba suuna ruux kale ugu baahan sababtoo ruuxan jacayl markuu meesha uu jacayl joogo inuu wax kale idinka soo dhaxgal lama baahna waa inuu adiga wax kasta ku arkaa ruux marka anigu taasaan aaminsanaa laakiin hadda ruux lama wadaneeyaba niyo waayahay aan sii wadno marka aad ku aragtay qof kale oo iyadoo qof kale wadata oo la socota adigu kulli dareenka ku soo noqdo horta markuu qofku inuu jacayl ama wax ku dareensiinayo ayaa sii daba socon sax sidaas ay tahay anoo daba socda oo hadana daryeelkayga sii wata ayaa waxa dhacday in gabadhii lambaradii bedelato oo meelan kala xiriiraan waayo walaaladeed familkeeda hadaan la hadlo ay lambarkeedii siin waayeen meel nagala socdaan annaga lambarkeedii ma haynaa ay u dhaheen sidaas ay tahay lambar bedelashada iyo waxa lambar ku bedelay ma adiga ka bedelatay mise dad kale bay ka bedelatay taleefankeedu way bedelatay qof hadduu taleefanka bedeshanaysa sababtuu bedeshay aad ma garan karaysa isaga caqabada ku dhacday in badan baan raadiyay inuu taleefanka wax maadayni kale kadib waxa la sheegay gabadha maxay ahayd iyaga ay ilmaabtihiin waxa ay sheegtay in taleefanka la qaadatay waan ka wacay sida aan soo sheegay intay ku jirtay ee balog saartay adigii waxa soo dhan iyo daryeel u sameeyay lambarkiinta ka bedeltay waliba markaad lambarkeeda dib ka saashay ay balog gelisay sax markaas markii balog gelisay marka maxaa adigu xal oo qorshe oo qaadatay danta waxay u kaliftay markii balog la igu saaro hadana khad iyo meel kasta laga soo hadli waayo taleefanka laga qaadan waayo kaana ay bedeshay lambarkii kalena ay bedeshay balogkii iga saartay markaan soo waawacay lambar kale ka soo wacay kay markii balog saartay kala ka garaacay kadib waxa dhacday waxay u kaliftay dantu inaan halka ku haro ama halka kaga haro jacaylkii oo ku gool dareysto jacaylkii riyada sidaas aan ugu bixiyay qisadeeda saasaaad waxa sayid ku weydin halkaas ayaan ku waayay jacaylkii riyada gabadhii mar dambe ma saaragtay miyuu waan rajaynayaa haddaad lacala mar dambe saaragtaan miyada jacayl saysaa mise imika gabdha kale iska raacdayba hadda imika waa la weynaaday sax tabawaradkii dambe ma jiro laakiin wax yar hadalla marusha sheegay laan bilata maxaa waaga dhamaatay sama qof kasta oo qisadan arka maxaad uga diglayd horta niyo waxaan sheegay lahaa dhalinyarta ruux markaad jeceshahay ee daninta badan siinayso daninta badan way fiican tahay marar badan way fiican tahay laakiin qof marka danin badan saayida siiso sax waxa qasab inuu ka tago ruuxaas sax sababtan waan garan waayaan sababta laam kameys ma hayo sababtaas ruux marka la jeclaado ee jacayl badan la siiyo jacaylkiisii ama intuu la ka aad siiso uu ka tagaya qof walba intuu qalmin la siiyo in ka badan la siiyo marka dees wax qiyaas lama hayo Soomaa qofku waa jeceshahay aad marka jeclaato ee daryeel siisay wax kasta u qabato uu ka tagaya ruuxi maxaa xal marka sinkan la wada haadan ba xalada sida dhalinyarta Soomaalidu baantay hadda horta niyo mid baan garan way anigu hablaheena Soomaaliyeed sidii u roon garan way hadii aad jacayl siiso iyo danin badan aad siiso way ka tagayaan hadii aad su kibrisana
way kaa tagayaan laba gooraba waxay odhan ninkaas wuu kibir badan yahay haddii aad jacayl badan siisana waa kuwan kaa tagay badee jarada marka adiga ka yeedanaya hadaad kibir badatay haddii adna wanaagsan noqoto sidoo raman garan waay bal hablow noo soo kala cadeeya sida idin rabo idinkana ma isleedahay jacaylkii soo maro oo kale dib ugu laabo jacayl samee markii hadda wax waalan baan ahay hore Soomaalidu u tiri dabkaas shalay ku joogsatay damiskiisa laga leexdaa sax marka xiriirkaas oo kale iska day xataa kugu dhow ma sameynaa haddaan xiriir sameynayna xiriir jacayl caadi ah normal ah uma wada sameynayna su'aal weydiiyo calafkii jacaylka kee aaminsanay calafka ka weyn bay Soomaalidu tiraahdaa adigu mukeed aaminsantahay adiga gacanta anigu imika aan joogno adigu keed aaminsantahay calafka ka weyn waxaad jeceshahay calaf waxa waa qoraalka ilaa calafka marka lagu leeyahay calafka ka weyn bay la taanay calafka jacaylka dhalay baad leedahay calafka ka weyn ba jacaylka dhammo gabadhii intaas oo dhan nolosheeda aad adigu soo garab taagneed saad sheegtay aad booska aabbo kale u taagneed oo wax walba aad ka bixin jirtay dib ma laga yaabaa inay ku soo xasuusato may weli wax xiriir ah oo ay soo wacday ma jirto laakiin wax uqdada iyo calxumatana uma hayo sababtoo gabadhii aan shalay jeclaa bay ahayd maantana sidii ayaanu jeclahay oo walaasha gabadh walaashaya marka cafis ayayna iga tahay waana cafiyey okay bulshadana daawanaysa dhalinyarta aad daawanaysa maxaad fariin u reebi lahayd dhalinyarta waxaan odhan lahaa xiriir waa la wada sameeyaa haddaad xiriir sameynaysaan xiriir doqonnimo ah inaad qofka u dulisnaato oo xiriirnaata ha sameynina xiriir caadi ah labada ruux aad isku dheelitiran tihiin sameeya qofka wax ku qaban waxaad u qabanayso laakiin qof aad u xidhan tahay oo kale xiriirkaas wala sameyn ilaa inta ay ka gaadhayso sheekadiina guur iyo hawlo kale qisadan aad arkaysa in aad ku xanuun badan waxa qiso kamid ah ku dhacday mid kamid ah dhalinyarta magaalada cid kasta oo magaalada joogtana qiso ku dhacday iyo cid walba jacayl soo martay ama afinaata ama xumaato asxaabta nagu xidhan waxaan leenahay ruux walba oo qiso ku dhacday ama barta community-ga nagu la wadaago si aad u baahan tahay inaad qisadaada lagu soo tabiyo oo muuqaal laga duubana waa ku furan tahay soo dhawaada cabdiraxmaan hadalka ugu dambeeyay maxaad naga tagaysaa horta dhalinyare xiriirku waa waxna wada sugaya kii soo arkayna uu arkay kii aan soo arkina waxaan ku odhan lahaa marnaba naftaada cidnaha u duleyn